oo meeshaas chance weyn ayaa ka furan soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqa cryptocurrency haddii aan fiirno dhinaca qiimayaasha waxaan u jeednaa BTC inay marayso 62844 Ethereum 1699 XRP $1.13 sidoo kale BNB waxay maraysaa 576 Solana 68 ay maraysaa okay haddii aan fiirno dhinaca iyo fear and greed-ka waxaan u jeednaa inuu marayo 14 uuna yahay extreme fear shalay wax ku xirmay 15 isbuucii soo dhaafay wax ku xirmay 12 last month wax ku xirmay 27 sidoo kale haddii aan fiirno crypto bubbleska coinanka xaaladooda markii la joogo daily saaran yahay sida defaultiga ah wana warka haddaan fiirno waxaan u jeednaa pit ayaa xogaa u dhaaq fiican coinanka kale waxa waaye qaarkood minus ay ku jiraan qaarkood iska neutral haddii aan fiirno daily oo kale daily waxaan u jeednaa coinanku inta badan inay yihiin minus haddii aan fiirno weekly-ga coinanku inay xogaa yara maaragtay polish yihiin oo waxa ugu fiican lab error wild iyo xlm iyo uni iyo Jupiter Hype Aave kuwaas ayaa ugu fiican marka muhiimadu waxa waa marka dadka trading ku jira 1 hour-ka ayaa muhiim u ah marka dadkan kale higher time frame-ka waa wixii investment ama maaragtay long term oo kale ayaa ka fiirsan karaan ilaa 1 month 1 year dawbada marka haddaan fiirno yearly oo kale waxaan u jeednaa 3 coin ama 4 coin marka laga reebo inta kale inay yihiin bearish oo meeshaas chance weyn ayaa ka furan haddii aan fiirino dhinaca technicalka saaxiibayaal muuqaalkii u dambeeyay falanqaynta iyo updates ugu jiray saadaasheena sidaan ayay ahayd waxaan sheegnay 2 scenario ayaan qaadanay bullish scenario ma shaqeynin balse waxaa shaqeeyay bearish scenario ayaa shaqeysay waxaan sheegnay in suuqu uu joogo zone maaragtay runtii meeshaan ku aragtay inuu iska celiyo oo xoogaa maaragtay conjunction area ah marka zoonkaas ayuu suuqu kala kulmay iska caabin aan caadi ahayn ayuu kala kulmay marka waxaan sheegnay in uu suuqu si guud u baahan yahay nasiino maadaama xoogaa suuqu recovery uu sameeyay marka waxaan ka filaynaa aagan 59 ilaa 60,000 inuu ku soo laabto mar kale lagu yaraan inuu maaragtay kadib inuu dhaaq sameeyo marka bullish scenario ma shaqeynin bearish scenario ayaa shaqeysay taasna waa inaan la socotaa haddaan fiirno dhinaca iyo maaragtay liquidation-ka suuqa liquidation map-ka haddaan fiirino waxaan u jeednaa coinankan oo ugu horeyso BTC Ethereum others waxaasoo dhan waxa waaye in loo galay buy in loo galay map ahaan haddaan fiirino waxyaabaha cajaa'ibka wax ka mid ah mostly dadkan horta weyliska ama dadkan jabweynta lacagta haysta suuqa ma yaqaanaan ma las garayaan waa qamaaraystayaal waay suuq sell ah ay wax u galayaan buy marka why suuqa looga saaraynin oo maaragtay liquidation lagu qabanaynin taas waa in ogaataan haddaan fiirino hadda 4 hour aan taaganahay 12 saac u dambeeyay haddaan fiirino isagana waxaan u jeednaa in Ethereum oo maaragtay short ahaan looga saaray dadka ugu badnaa 3 milyan ah SpaceX isagana looga saaray 4 milyan marka coinankan kale adariska 10.3 milyan looga saaray BTC waxaan buy loo galay saa u jeedin haddaan 24 hour ka fiirino waxaan u jeednaa BTC kaliya 136 milyan in liquidation buy ah looga saaray 40 saac u dambeysay marka cajaa'ib waaye haddaan fiirno total liquidation-ka 40 saac isagana haddaan geysano 40 saac u dambeeyay liquidation-ka marka 40 saac u dambeeyay si guud waa 452 milyan marka haddaan fiirino exchange-yada ugu badan oo ka dhacay Binance si guud waxa uga dhacday 189 milyan ayaa uga dhacday long waxaa maaragtay looga tuuray 157 milyan ayaa looga tuuray shortiga waxaa looga tuuray 32 milyan marka dadkan waa dad asal looga dhaca laakiin meeshaan oo longiga dadka suuqa oo baaga u galeen meesha u jooga meeshaan waay hyperliquid isagana si guud waa 84 milyan 73 ayaa long ah 10 milyan ayaa ah short Bybit asagoo waa 53 milyan si guud 45 milyan oo long ah iyo si guud 7 milyan oo short ah marka si guud dadku waxay ku jabeen waa suuqa ay baaga u galeen waay waana dhinaca futureska waay marka saaxiib iska ilaaliya futureska marka ka soo hadli doona asxaab far badan soo wadiisay
dad fara badan dad ku dhiirigeliya waa arkay marka cajaayib waaye marka soo hadli doona insha Allah waqtiga iyo waayisa u deenina haddii saaxiibayaal aan fiirno dhinaca fundamental newska muhiim waaye fundamental newska suuqa marka la joogo aan gudaha u galno newsadii Windowta iyo update ka soo baxay waxaan u jeednaa newsyada in horta maanta news ma jiro waa holiday waaye marka maalintan yiraahdo Juneteenth waa maalin dadka African Black American-ka ah ay maaragtay u dabaaldegaan xornimadooda marka sida daraaddeed ayuu maaragtay wax maaragtay isaga report ah ama news u soo bixin haddaan fiirno marka newskan la yiraahdo Philadelphia Fed Manufacturing Index-ka waxaa la filayay oo la saadaalinayay inuu ku soo baxo 9.8 balse ku soo baxay 10.3 ay ku soo baxay marka newskan si guud wuxuu bullish u ahaa dollarka ayuu maaragtay bullish u ahaa haddaan fiirno newska labaad oo ah initial jobless claims-ka isagana waxaa la filayay inuu ku soo baxo 225,000 wuxuu ku soo baxay 226,000 marka sidaa daraaddeed tiradan laga batay waxay bearish ama negative u tahay dollarka taasoo ogaataa okay waxa ku soo haray haddaan fiirino tomorrow news ma jiro waxa waaye waa sabti okay soo kale haddaan fiirino saaxiibayaal dhinaca stock-ga waxaan u jeednaa in maaragtay stock-gu si guud xaaladiisu iska yara degan tahay oo maaragtay beariska iyo bulliska iyo New York aad isku egyihiin marka joogu waa iska degan yahay haddaan fiirino dhinaca gruubyada kale daily performance haddaan fiirino waxaa haysta dhinacan maaragtay qolyaha teknolojiyadda ayaa runtii xoog ku haysta oo maaragtay plus 2.98 ayaa haystaan sidoo kale consumer maaragtay cyclical ayadana waxa waaye 1.57 ayuu haysta communication service-ka waa 0.98 iyo utilities-ka oo ah 0.46 iyo industrial-ka oo ah 0.34 real estate-ka oo ah 0.01 financial-ka oo ah qaybtan waa low waaye marka adiguna maaragtay shanta industry ayaa u kacsan si guud okay marka saaxiibayaal fursadaha suuqa waxa laga faa'iideysto daan technical-ka fiirno BTC wali waa bearish waaye marka dhaqaaqa dambe ay sameynayso haddaan fiirno dhinaca iyo dominance oo kale haddaan fiirno asagan xaaladiisa bearish buu ahaa asaga marka maanta waa iska yara bullish waaye marka waxa ku soo haray USDT dominance xaaladeedaan fiirino USDT dominance-ga waxaan ka rabnay in maaragtay xoogaa ay zoonkan u soo laabato marka aad u maaragtay uma laaban oo horey ka laabatay marka ayadana waxa waaye lacag fara badan ayaa runtii ku soo qulqulaysa lacagtaas badankeed waxa ka soo baxaysa waa dhinaca maaragtay Bitcoin-ka total 2 haddaan fiirino in lacag fara badan ka sii baxayso ayaan u jeednaa haddaan fiirno Ethereum ayadana maaragtay in ay bearish ku jirto ayaan u jeednaa Solana haddaan fiirno waxa waaye ayadana bearish ku jirta haddaan fiirno dhinaca iyo maaragtay Afakis ayadana waa bearish oo runtii coin-ka aad ba maaragtay loo daadiyay u socdaa marka boqolkiiba 90 coin-ka hadda suuqyo kale waa bearish sag waxa waaye maalin loo taxliilinay ayadana waxa waaye waa bearish waxa laga faa'iideysto saaxiibayaal fursado fiican baa furan aad ama santihiin muuqaalka like saar subscribe saar saaxiibada la wadaag